kusoo dhaweey barnaamijka nasiibka daawadaha ee Jubaland TV. walaal waa duwahay oo maasantahay magaciisa haddaan ku bilaabo magacayga waa Maxamed Amiin waan soo dhaweynayaa barnaamijkeena ka jamaa waa maasantahay Maxamed Amiin oo inaan su'aal ku weydiino diyaar baa u tahay diyaar baan waa tahay Maxamed Amiin oo waxaad sheegtaa haddii aad garanaysid kuma wahaa malagii nabiga u waxyoon jiray malagii nabiga u waxyoon jiray wuxuu ahaa malakku Jibriil baan qodanay aad baad u mahadsantahay Maxamed Amiin waxaan weydiinay su'aasha ah kuma wahaa malagii nabiga u soo waxyoon jiray waxa uu jawaabta ku sheegay inuu ahaa malakul Jibriil sidaasna Maxamed Amiin jawaab sax ah uu ku bixiyay محمد أمين مدام سؤالي عن كويديني أتكتب جواب صحن أتكتب واحد نقول على هدية داسو أي بحين أنا برامج كتاب بقولين يسوع شقد إسكارزين كسمتل بل سمتل معميل ملكها والله قديت وقت وايد كتبوني سايد أنا ما سنتين سمتل أنا جوحنا هاي بدك كاستم كا أو سايد استعماله طبعاً هانتي إنترنت سايد كوا استعماله سيدو كله local communication كنا هو استعماله برنامج اللي يراده local مراد $6 سنة بيشلن قبل عن حرير كلنا سايد يقول استعماله سايد أو جعله كدائي كسر دواء برامج كنصيب كداوده Jubaland TV ولا ما سنتها مقعد واحد يا محمد عرفنا محمد سودو إن سؤال كويدنا ديار أو تاي ديار محمد waxaa loo sheegtaa cudurka loo yaqaan geeridii madoobay cudurka loo yaqaan geeridii madoobay wallahi horta cudur oo dhan waa iska geeri laakiin in daacunka yahan maayna kuseel daacunka waad maasan tahay maxamed waxaan weydiinay waxaad sheegtaa cudurka loo yaqaan geeridii madoobay waxa uu bixiyay jawaab sax ah waxaana ku sheegay inay tahay cudurka loo yaqaan daacunka ama shuban biyoodka محمد sida aan kugu sheegayba su'aal ayaan weydiinay jawaab sax ayuu ku bixiyay waxaana nagu yeeshay hadiyadaas oo ay bixinayso oo barnaamijka ugu deeqday shirkadda isgaarsiinta ee Samtel محمد نصيب waxan كسر دواء برامج كنصيبك داوده Jubaland TV magaciisa Xaliil Xasan Daar Farax حسن ina su'aal ku weydiino diyaar u tahay diyaar baan wahay waa tahay xasan waxaad noo sheegtaa haddii aad garanaysid codka faraska magaca loo yaqaan dan حسن soo magacay Xasan Daar Farax حسن waxaan weydiinay waxaad noo sheegtaa codka faraska magaca loo yaqaan waxa uu ku jawaabay danan jawaab sax ayuu bixiyay حسن وما سنتهاي نصيب وعنا ينقلين كسر دواء برامج كنصيبك داوده Jubaland TV oo ku dhawaad Jubaland TV aad u maasii magacaaga Maxamuud Yuusuf cali ina su'aal ku weydiino diyaar u tahay diyaar aan wahay waa tahay cali oo waxaad noo sheegtaa kuma wahaa nabigii laga soo saaro wadan Afrikaana haddaan isku daya Nabi Muuse alayhi salaatu wasalaam cali waxaan weydiinay kuma wahaa su'aal ah kuma wahaa nabigii laga soo saaro wadan Afrikaana waxa uu ku jawaabay inuu ahaa nabiyullaahi Muuse alayhi salaatu wasalaam sidaasna waxa uu ku bixiyay jawaab sax ah علي برامج كان نصيبك داوده waxaa taabagelinaysa shirkadda isgaarsiinta Samtel maxaa leedahay Samtel aad iyo aad marka hore waxa uu mahadcelinayaa Jubaland TV oo barnaamij diini ah ay u baahan tahay mar walba in dadka laga wacyi geliyo marka shirkadda Samtelna waxa leeyahay Samtel aad iyo aad ugu mahadsantahay shirkadda Samtel macmiil ma la tahay macmiil waa isticmaalaa mar walba asantahay sida waxaan barnaamijka uga qayb qaadatay nasiib waxaan ayaan ku rajaynaynaa sidoo kale dhamaantii Jubaland TV aad u mahadsan ku soo dhawaad barnaamijka nasiibka daawadaha Jubaland TV waan dawaa walaalo magacaaga Maxamed Abdi محمد سودو إن سؤال كوي دين ديار أو تسمع ديار محمد واحد شيكته
codka faraska magaca loo yaqaano عدك فرسك صوت الحصان عربي أم Soomaali صوماليا حين يا حين 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 maxamed oo maasan yahay waxaan weydiinay su'aal ah waxaad sheegtaa dhawaqa codka faraska magaca loo yaqaano waxa uuna jawaabta ka dhigay xiin balse maxamed waa isku dayday jawaabti maadan haleelin laakiin isku day wacan ayaan kulan ku soo dhawow barnaamijka nasiibka daawadaha Jubbaland TV ay magacaaga noo sheeg magacay Sahro inaan su'aal ku weydiino diyaar u tahay diyaaro waa tahay Sahro waxaad sheegtaa codka faraska magaca loo yaqaano codka faraska magaca loo yaqaano ma garanayo waa maasantahay Sahro waxaan weydiinay su'aasha ah waxaad sheegtaa codka faraska magaca loo yaqaano balse Sahro waxay tiri jawaabtaasi ma garanayo waa maasantahay Sahro ku soo dhawow Jubbaland TV iyo barnaamijka nasiibka daawada ما شاء الله ودوهاي جبلان تي في هذا وصل دوهاي ديار بان ان شاء الله magacaaga وحير عبد القادر ان شاء الله Cabdiqaadir soo dhawow inaan su'aal ku weydiino diyaar u tahay انت الهي كرسي ان كهل ديار waa tahay Cabdiqaadir waxaan ku weydiinaynaa kuma waha nabigii wadan Afrikaan ah laga soo saaro كم وها nabigii wadan Afrikaan ah laga soo saaro ودن افريكان لا يصل صار ميا ha اوكي ما قرنا سواشاس ku soo dhawow barnaamijka nasiibka daawadaha ee Jubbaland TV aad baan ugu dhawahay haddii aad magacaaga nala wadaagto inaan su'aal ku weydiino diyaar ba u tahay aad weyn ay magacaaga magacaygu waa maxamed cali kalaay maxamed soo dhawow waxaan ku weydiinaynaa haddii aad garanaysid codka faraska magaca loo yaqaano codka faraska magaca loo yaqaano waa waa isku day kartaa haddii oo aad garan weysid ma garanaya codka faraska magaca loo yaqaano ya waa iga maqantaa ma garanaysid waa iga maqantaa aad baad u mahadsan tahay maxamed waxaan weydiinay su'aal ah waxaad noo sheegtaa codka faraska magaca loo yaqaano dhawaqiisa balse maxamed waa uu ku mahadsan yahay isku day ayuu sameeyey balse waa uu haleeli waayey maxamed nasiib wacan ayuu ku leeyahay ku soo dhawow barnaamijka nasiibka daawadaha Jubbaland TV waan ku soo dhaweeyay walaasheed anigoo ah maxamed cabdi shugur oo ku nool magaalada Kismaayo oo Jubbaland maxamed oo ku soo dhaweynaynaa waxaad sheegtaa kuma ahaa nabigii laga soo saaray wadan Afrikaan ah oo wadan Afrikaan laga soo saaray nabiga maxamed cali salaatu wasalaam maxamed soo magacaaga maxamed waxaan weydiinay kuma ahaa nabigii laga soo saaray wadan Afrikaan ah waxa uu ku jawaabay waa nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam balse maxamed maadan haleelin jawaabta saxda waana maasantahay isku daygaaga sida isku dayda kaaga mahad celinayna